annagoo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee matala gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxaanu si adag u cambaareynaa gabood falka dilalka qorshaysan barakicinta xariga xadgudubka iyo arxandarrada joogtada ah ee maamulka Hargeysa ku hayo shacabka Sool, Sanaag iyo Cayn ee aan waxba galabsan waxaanu taxsiin u direynaa ehelada dadkii sida bareerka ah loogu laayay magaalada Laascaanood 26 bisha ilaa 28 bisha waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu dhamaantood u naxariisto inta dhaawacana u boogadhayo waxaa la og yahay in maamulka la baxay Somaliland ee SNM gudaha magaalada Laascaanood ku dilay tan iyo 2007 dad ka badan 150 qof oo isugu jira haween culimo waxgarad oo ah haldoorkii bulshada oo ugu dambeeyay dilkii dhacay kaas oo 10 qof lagu dilay in ka badan lagu dhaawacay kuwaas oo ahaa caruur iyo haween dareenkooda ku muujinaya banaanbax nabadeed oo aan hubaysnayn kana banaanbaxayay dilkii bareerka ahaa ee ganacsada Cabdifataax Cabdulaahi Cabdi loo geystay sidoo kale gabood falka iyo xasuuqa ka socda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxa markhaati doonto u ah weerarada hubaysan ee ay ku qaadeen deegaanada SSC sida Kalshaale, Tukaraq, Saaxdheer, Taleex, Awrbogeys, Xudun iyo meelo kale badan ujeedooyinka maamulka la baxay Somaliland waa inay cabsi geliyaan barakiciyaan dadka asalka u ah deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayna ku qasbayaan inay ka go'aan Soomaaliya oo ah arrin aysan marnaba bulshada deegaanadaas ogolaan doonin taas oo ay markhaati u tahay in ismadii SSC daba joog ka yihiin magaalada Laascaanood tan iyo 2007 waxaan ugu baaqaynaa maamulka SNM inay si degdeg ah u joojiyaan tacadiyada iyo gumaadka ay ku hayaan waxgaradka beelaha SSC ayna ciidamadooda ugala baxaan deegaanadaas si ugu dhaqsaha badan si aan dhig dambe u daadan waxa ayaan darro ah in shirkii golaha wada tashiga qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho looga hadlin xasuuqa maamulka Somaliland ka wadaan magaalada Laascaanood waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxda dawlad goboleedyada dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed inay gutaan waajibaadkooda iyo mas'uuliyadooda ka saaran deegaanadaas oo muddo dheer loo dhibaateynayay midnimada Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya inay wax ka qabtaan tacadiyada iyo dhibka lagu hayo bulshada Sool, Sanaag iyo Cayn lagana joojiyo maamulka la baxay Somaliland kaalmada caalamka ee lagu dhibaateynayo dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan deeqaha caalamka in loo marsiiyo dawladda federaalka Soomaaliya oo aan Somaliland waxba loogu dhiibin waxa murtiyeedkan iyo baaqan ku saxiixin xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya ku matala deegaanada SSC waa mahadsantihiin